هيا هو هلا دقستي اوكي ياسين كسب محمودك سوري ها هاي لهذا الحاسكاك لولي horta abay macaan adi hadda umaleynaysa aniga xawla adduunyo bisnee wadamo iyo balaay iyo migration iyo mahal lama aqaan hadda umaleynaysid aniga uma jeclay wallahi ya maraa adigan si xadaaf ku jeclahay adigana adduunka ku jeclahay nolosheeda adiga waxaan kugu doorsanaynaa malaha wax walba adaa iga muhiimsan adaana iga qiimo badan ma hadda soo istaagteen aniga awood aan maanta aniga duul saas aan ugu furantaan ku dhahayna malihi taasi waan ka soo dhaarto wad ogtahay nafta la iga dhici karto waa mid ku faliisay ani adan si xadaaf ku jeclahay waligeena waan ku jeclaa doonaa inta noolahay nafta igu jirto اوكي ما كسب بحا لولي انا لا ده لولي سليم ادم لو ده لولي ما حد لكرا اوكي ان ياسينو هرت ويل walaalkayga tahay in xumaan ku marabo in adana ma jecli ina xumaan ay geysatid isla joogeena dhibaato weyn aniga ku qabaa iswadi karno saa hore u dhahay noloshana cariiri ma ahan haween iyo maalin caay aflagaado iyo nin kasto agteeda soo maro ay kursaaraysid ilaa magaalada telefoonka ila aad iyo inaa idhaahdo torto taas nolol iyo ma ahan mar walba waxa ku dhigi jiray walaalo naxariis jacayl isi qayl ma aha nolosha hada horta naagta ilaahay hal nin u baneeyay ninkana afar meesha maanta aan ka welweli lahay ama naag lu guursada adiga yaaba anigoo iqabo oo marwo oo xalaal igu qabo aaba nin kasta habeen kasta ii saarto oo ninkaas waa lagu fuulayo waa lagu socda waa nina balansatay waxaan soo ogaaday ina wax cuntid wax cabtid kan inta ka baxay iyo aflagaad iyo waa lagu fuulay iyo waa lagu fariyay ma ku noolaan karo walaalkay waxaan jeclahay dad Soomaaliya nahay ceeb intaana nagu filan ani adigaba iyo ehladeenaba marka waxaan jeclahay walaalow nafteyda waa kuguma kalsooni I'm very sorry hadda adiga jecel ma ana maanta dhan muuda kaaga jiriya WhatsApp ma ahan inta waa social media waaya 13 kuna la daawanayso mudgal yaasiin go'aankayga waa gaaray mar walbana anoo ku baryaayo oo si kasta ku baryaayo oo ku leeyahay walaalo aflagaadada iga daa war walaalo caayda iga daa war walaalo ilmaan haysta war walaalo gabar cayaal suuqad miihi war walaalo horta hawshan meeshan adaa soo gaarsiiyay social media adaa dhax keenay markaas videoga sawirkayga aan soo qaado wiil miskiin page-ki soo kor saarto habeenkaas aniga ka calool goostay oo ay dhaada naagteeda 5 kun lagu qaadanooya ilaa ehelkayga aa u dhaxday marka labada qof isfahamka labada qof waay mooyee social media misku keen fahamsi karto waa ka xumahay I'm very sorry waxaan jeclaa inaan is cafino oo meeshan aan ku kala baxno wiil walaalkayga taa goor walaashaada ay xumaan idhibaato okay ma dhameys way hal mar ma dhaysatay dhameys bas gabadhan taagna salacna waxa u daraa suka waa 1 minute ma horta hada dhameysatay hada abu yaasiin ma ya hada dhameysatay adiga mudgal oh my god mudgal kaysa yaasiin raga tahay saas waay wiilkan saas waa xataa marka WhatsApp lagu hadlay kaligiis oo jecel inuu hadlo oo qayliyo oo caytamo oo buuqtamo marka caay iyo buuq waa laga roon yahay walaalo meeshan noogu soo kala xir kulay aniga maya waa ka baxay ku maya please anoona leeyahay nin kale yartaa iyo ninay u socotaa iyo rabbul kacba rabbiga carshiga abuuray oo kacbada abuuraa ku dhaartay anoo nin qaban nin shukaansanin afkayga kansar Allah ka soo bixiyo kansar Allah ka soo bixiyo awlaada haystaa marka walaalo macaanow dad walaalaan nahay fadeexo iyo foolxumo intaana ugu filan ehlan leeyahay dadaan leeyahay ilmaan leeyahay dada daawanaya asxaabaan leeyahay wiligeega waxaan leeguma baran intaana isoo gaarsiisi waa ku mahadsan tahay waxaan jeclaa inaa oo walaalow walaaltinimo iyo si sharaf ah ku kala baxno خلاص هذا ما فكرة واي هذا horta aniga maanta horta awood maanta aniga gabadhan ku faraa Allah horta taas horta waxa way waladaalay oo mideed kale arrintaaniti khasuusin ilaa halahan waxa uu soo gaartay hal shakhsi oo aniga TikTok ayada isiisa aniga macal Gmail-kayga si WhatsApp-kayga si gabar walba naag walba ay wax isdhihi jireen ee iscaay jireen waxba kama dhihi jireen ma fahamtay okay hal shakhsi oo maanta aniga igu soo qosla aniga qoraalka aan ugu jawaabay درجة نوعا لك ليس ما أنت الآن إذا برتها الناس وجارسيسي ما أنت خوفك سيجد لان لهين أنا جوحن أنا أسيء نرجع سلاء
ma imaan lahayn halahan oo aniga hadda marka arinta kulay in hadalka ugu dambeeyay waxaan u sii dhiibayaa madaxweynaha u dhiibay laakiin aniga awood maanta aniga luulaa ku furaa aan lahaay ani reerkayga waa u baahana waana jeclaa mana ka sabri karo Shabel moodka ka soo bax Saleebaan mood ka soo bax maya judge-kan suuqa wuxuu la go'aankooda imaado kadib hadda macnaha yani abiil aan ka qabno abiil aan diibinayna waayo Cabdullaahi haye maxaa ku muuqdo niyo horta waxaa ii muuqata xaaladdu inay adag tahay gabadhaas walaasheeya ilaahay haddaan runta ka hadlo hadal la yaqaanin ku hadashay ninkan ragga ah niyo nin rag ah tahay shalay gabadhaan raganimadii aa ku soo heshay dadnimadii baa leedahay horta kow naag hadday ku rabto cid uunu kaama celin karto haddaysan ku rabinna say kuu tuurta waa cid kuu qasbi karta ma jirto shalay ayadaa ku rabtay maantana kuma rabto ninka raggaana wuxuu rag ku yahay wixiisa inuu hoos u xalisto mar haddee waxaaga ee baraafad ka soo baxeen xataa is-aaminaadi galaa xataa dhumaysa mogta maadaama arrintaadii adoo nin rag ah aad xallin weyday oo gurigaaga si baraafada aad u xallisan weyday oo arrintaadii ay timiday maaragtay meesha la yidhaha babliga ay timiday waxaa qurux badan gabadhaas in aad u fududayso haddiise aad leedahay waxa weeye isha gabadha ma fududaynayo oo waa haysanaya aad leedahay kow shuruudo badan oo diiniyaa ku hor imaanay gabadha ma biilaa biil ma siiyaa maadaama uu qabo ay xaaskiisi tahay ninkaani biil ma u soo diraa waa kuweeshanka koowaad weeye haddausan biil u soo dirin maxaa dhacaya waxaa dhacaya haddausan biil u soo dirin oona madaxeeda inuu siiyo rabin maxaa dhacaya waxaa dhacaya inay iska fasaqdo taasaa dhacaysa Cabdullaahi adaa hadalka ku wata wiilka su'aalahaas weydiiyo marka waxaa rabaa inaan weydiiyo laba marka bismillaah rahmaan rahiim waa dhageystay ismarwaa badan oo ka muuqdaa Yaasin adiga madaxweynahayga iga jawaabo okay Yaasin adiga inaad martaa inaad soo dhaafto martaa ani ayada kaliya u baahanahay bis dhoof buu baanta قال له وحويا waxay la tahay adigoo noloshaada nafsadaada farax ka qaada ay dhahay noloshaada farax ka qaada marka adiga go'aankaaga wuxuu yahay gabadha inaad furin hadii lacag laga siixta lacag aan ku xisaabin ku dhaar lacagtan qaadaniyo ku shaqayso daayira su'aasha ma fahmin ugu cel daayira ma fahmin ugu cel shaaraa ka jawaabaya hadii la ogolaado ma masaal rabaa laakiin ugu cel daayira Saleebaan ugu cel bakaalo ani waxaan dhihi Saliima sug wasanka ku dhahay maya yani waxaan ka rabaa daahiro wiilka su'aalaha ma fahmin ugu celi telefoon waxa soo galay maxkamadda qarashku siinaysa ama ku shaqaysa ama ku dhoof luulna iska dhaafsay waragta taasi madaxweynahayga iga jawaabay aniga taas ma ka jawaabi karo madaxweynaha iga jawaabay yiri madaxweynaha gabadha ma qabo Yaasiin oo adaa qaba ka jawaab saasha xaaskaaga ma nin kale kaaga warramaa ninka xaqa luul waa ku dhaaf kan naxaba laakiin naagtu waa soo jeesto waxay tiri nin isdilay isuma aamini kari tan naagtaana qurbay joogtaa walaal wax isdhooqay bay aragtaa wax isdilay dhiig haday aragto waa cararaysa sida caadiga ah diiniyan kolkay bahash meesha ay gaado waxaa loo baahan yahay ehel in bahash loo dhiibo ama in maxkamad loo sii daayo oo qaaliga uu xukmiyo aniga waxaan dhahay lahay qaaliga go'aanka uu ka soo baxay maadaama gabadha aan dhageysanay inay ninkan aysan u baahneen oo ninkana gabadha uu leeyahay waan jecelahay aniga waxaan qabaa go'aanka qaaliga uu keenay hadduu ninkan wax uu ku qancaayo qaaliga uu ballan qaadaayo gabadha ninkan ehelnimo iyo tolnimo ayaan aga fasaxinaa anoo ninka Shabeel ah ma hadli karaa okay daahiro horta Yaasiin hadduu xataa hadda saacadan hadda inta aa fadhiyo hadduu albaabkaas ka soo gala xataa aan nafteeda kuma aaminayay I'm very sorry qaali iyo tol iyo waa laga soo daalay tol iyo ehl Suleymaan adigaba waa ogtahay waan ka soo daalay
oo konton iyo afar mar ah iyo qoran antriya nala soo dhaxgaliyo isbedeleenin aniga nafteyda ma ku aaminay qof daab qasiil cabaayo oo saabuun cabaayo oo sunta dhilqaha cabaayo oo isjeexjeexayo oo ii soo dirayo wadnaha afka ii keenayo wadnaha caloosha ii dhaxgelinayo haddii uu dhinta laakiin adaa lagu haystaa waa ogtahay sooma maya ani isdil ma dhihin sorry dad laba qof adaa lagu haystaa sababtoo dartaa isku dilay wallaahi waa lagu haystaa may ani isdil ma dhihin labada qof maya waa lagu haystaa isdil hadhihin hadaa dartaa isku dilay Abdullahi yo labada qof way isguursan kartaa wayna kala tagi kartaa maya abay way isguursan kartaa laakiin qofku jacaylku inuu jiro ma beena ani tayda ka sii ani inaan jeclaado hadda okay su'aala ku qaba lul ma aaminsantahay inuu ku jecel yahay Yaasiin ay dhabka ta jacaylka maya waayo hadduu jecel yahay mooy caay lahayn social media nasabradeeda wixii qofka jecesha waa la caaya عايدة دقن ما عايدة دقن مكجرو دقال كوجران نينا سو غورسدي انا اس iiguma hore dhoocil 15 jir ma yihi reerka iyo xaq iyo nolosha dadka labada qof ka dhaxaysa waa aqaana jacaylka qofka jeceshahay waa la dhoortaa qalbiga loo dejiyaa mooyee habeen iyo maalin babs loo maqaato inaan ku jeclahay hadda sorry hadda jeceshahay ila xad ka meekan Yaasiin no you cannot do nothing Yaasiin oo ilaahay ka baq nafsadaada waxba ha gaarsiinan Soomaalida ma baxday arintaada u taala Yaasiin ilaahay ka baq Yaasiin waxaan ku sheegay hadaa isku naar baa tahay Yaasiin inta uma fadhin inay isku nafta wax yeesho adoo filin hindi dilaya laakiin qofka maanta nolosheeda inta ku wax sameerta Yaasiin isdil wax la ma jirto Yaasiin waxa meeshan waa la xalnaya arintan dad Soomaaliya nahay waa la xalnaya isdilaayo balan waa isma dil doono isbedeli dalo hadaa isdil caday kartaa inaad jecesha loo horba ma taalaba maya caday kartaa inaad jecesha yaa mudka joojiya asarsin Yaasiin dadka joogka ay mudka kala day caday kartaa inaad jecesha marka hadaa isdilin ani ifhamsi bas ani ma khali rafti ya maya filin hindi ko bitsadii inta la bas waaye سيب أنا وعدين أجعشة لا إله إلا الله إني أنت على بس إني سوقي لا مسكين وكوسو نخلي ليل شلي ساعد وين ما هلا نبلا هاي أنا ويلكم ما ضد مش ولا أنا واحد أنا نحرس ترى شكرا يا أهلي قاعد يرسل كده نحن نحرس دري ذا wixii markaan Abdullahi aniga leema soo naxariisanana aniga 8 kiilo jirkeeda laga tuuray dhafar darteeda iyo caay iyo qayl iyo murne dibka qofka qabo waa aniga leen shalay anaga guursada adiga igu darine hada wixii halaan Abdullahi walaal wixii halaan ka dambeeyo in adeer miyaada xitaa hilib Soomaal kun mara aniga ba ooyay hilib Soomaali kuma jiro miya oo igu jira kaale adiga qaatay Saliim shilin ba ma dhiibine muxuu iibsana asaab lacag la lagu guursaday maxaa iga galay aan shilin ba ma dhiibina adiga yaa ku dirsaday هاي كاله adiga qaatay waan la iska furaay maxabdile waa la iska furaay kaale adiga kaaga iska soo fur cunuga oo wajiga cariiriga qabo iska soo fur askati wala kalma كايغا جاجنا ugu adkeysanayo makuu banaano adi naag ma shitaanaya rijacariiriga la soo wadaa rijacariiriga isku bedesho waa la jooga kalabad adaa istibrid yahay oo dadka dhex soo galayso dadka meesha isku guursanayna ma ogtahay meesha isku aqligiisa xadanaya ana 100 sano jiro 100 sano jira waxa ku sheegaya aniga 100 sano jira naag 100 sano jira maxaa u rabtina ugu ooynaysiin gadana dalaaqda naag mata biima ku gadaano gado dalaaqda asana la gadana la iska furaa ka warnay ay amal banaanka loogu tuura bilaa idibtii gadanaynaaya dalaaqda kaali wallahi arada adiga inaan naxariis yeelatid way maxaa qaldan dalaaqda iibsa
dhagayso qof bila aadana oo ku ooynaya miyaadan xariis xataa hal mar horta mudi gala ani ma rabo Cabdullaahi mi xisbeysa ma hal mar mudi gala horta waa hadlaaya ina adeeray gacaliso ninkaas bila aadanka ah shalay nin caadi u hay markaa isbaranayseen cudurka adaa u keenay hadaa ilaahay laga baqayo runta la sheegay shalay ninkaani markuu ku baranayay nin caadi ah hadana laba 15 hortooda ku ooyay wada qof bila nin raga saas ma dhihi karo wallahi ma Cabdullaahi hadda ina adeer sugbal aan hadla ku soo gabagabayo nin ooyaya oo martaada 15 oo qof horteeda ku ooyaya ina adeeray gacaliso waxaas caadi ma aha qof bila aadan oo caadi oo waliba nin ah ina adeer saas uma dhaqmo walaal dhibka ka raga been uma ooyo adiga laftirkaagu xiri ina adeeray miyaadan ilaahay ka xiri Cabdullaahi ka mar ma ka qalaysid anaga ma xira marrabo isma rabo cid shal cid igu qasabta malahan maantan qof igu qasbi karta malahan holan marka keenta ma is aragtaan oo kadib inta ka horeysa u tagna dad naftayda aga baqaya ku Cabdullaahi maxaa ka qaldan walaal holan ma wax la isku yeeli karaa booliiska qabaay qolka holan wax ma ii tarees waqti lay gubi amba lay qalqal wax ma ii tarees awlaadeeda leega dhex bixi ilma adeeryaal aa kala xishoonaya gabar Soomaaliyeed ayaa leegu xad gudbinaya sorry nin raga wuxuu u ooyay caadi ma aha ninka raga waxa la rabaa inaad wax ku isiiyo maya ana soo ciishooday aniga dumara ahay hadda maanta ninkeyga raaxa ku qabila meeshan sheekadan ma iimaan lahayn all right okay maxaa adigu marka ku qanacda wax qanacadaada maxay tahay qanaacadeedu waxa waa wiilkaas wiil Soomaaliyeed waa wiil walaalkeeba inaan ku kala baxno wixii ka dambeeyna madaxweynaha hadii ka waran oo bal adigu ila Soomaalidu wiligeeda ragga iyo dumarka la isku maslix jira aan ku maslaxno maslaxa waa la soo daalay afar iyo konton maraan oo la soo dhaxgalay maslaxa waa nulu maya hadda maadaama odagii miidiyaha la joogtaan anaga dhanana la joogtaan waxaan rabnaa inaan wixii anagu xalino see u aragtaan maya am very sorry laakiin madaxweynahayga ku wareejinaya intaas wixii ka dambeeyo ayaga hadlay bismillahirrahmanirrahiim markii aan dhageysanay dacwadda garbaqalka labada garab ee Luul iyo Yaasiin markaan dhageysanay dadkii kale ee marqaatiyaashii wateen markii aan dhageysanay odayaashii meesha kala matalay Tiger Boy iyo Reeshabel Saleebaan arintaas waxaa noo soo baxday kiiska inuu meel ag taagan yahay waxaan baaris ku sameynay in Yaasiin uu doonayo gabadhan ka doonayo fiise inay soo dhoofiso ama uu doonayo meherka inay ka gadato Yaasiin wuxuu ku dooday inuu gabadhan asaga uu mataqaanaa isguursadeen laakiin uusan wili la kulmin uusan jameecin aysan naag u noqon sida darteed sida muuqata Yaasiin waxaa naloo soo diray isagoo si waali ah toori isugu dhifanayo isqalaya dhiiggiisana uu aad u socdo oo ooyaya waxaa naloo soo diray isagoo wax walba isku sameynaya gabadha darteed fiideo u soo diray waxa kale oo aan aragnaa in gabadhan ay aad uga xanaaqsan tahay inuu ninkaani ka hinaasay uu ku yiri Luul nin kale Axmed Dayli ayaa shukaasataani ma rabtid horta Luul qaladkay gashay ina waxay maxkamadda ku xukumaysaa inaan mar dambe aysan gelin intuu ninkaasi madaxeeda looga qaadayo oo kala tagayaan qaladkaasi waxa weeye inaad tiraahdo nin kale isguursaynaa iyo idoo lagu qabo aan ninka la sheekaysato inkastoo deenin reerkiina iyo iska kaftataan ay kafta tahay oo la fahmi kara kaftanka waa kasta la sameeyaa haddana maadaama uu Ferris TV yahay uu aad u nugul yahay Yaasiin waxaan rabnaa inta hawshaan aan ku jirno in mataqaanaa aadan mar dambe nin live kula sheekaysan wax nin ku saabsanna aan lagu arag hadal xun oo dambana aad u duubin telefoonkiisana aad fariin dambe ku qorin maadaama problem weyn uu haysto ninkii la Yaasiin ما داهرو هذا أنا أبى ميل يقدر يسا شرفتيدا سيقول لي كرتا نين با على شيء كيسنين سوري سنين ولا شيء كيسنا سوري أنا أقول شيء أنا كجودة مود قل هذا الكلام فاهمين أنا فاهمين مود قل Yaasiin waxay maxkamadda kugu xukumaysaa inaad mar dambe caayi karin hal dambe tabaraac ku sameey karin Luul inta laga wada hadlaayo hal dambe uma soo duubi kartid muuqaal dambe haddii aad wax dambe luuqa u dhigto Luul adoo isqalaya adoo wax ka sheegaya codkaaga had dambe haddaa Luul u dhigto waxay ka micno tahay inaad tahay qof fidnoola ah oo reerkiisa burburinaya qof dambe caayi kartid Luul iyo saaxiibadeedku ma xad gudbi kartid aniga iyo adiga inta anagu wada hadlayno telefoon bareefada
oo arrintaasi aan si hoose u wada hadlayno qof dambe lama xiri kartid luul qodobka aan kugu eedeeyey ee aad ka xanaaqda waxa weeye codkii ninka biimaalka ah la hadlayso isku cidaan nahay oo la kaftamayey oo kaftanka ahaydan guri waa kaa mamnuuc maadaama gabar la qaban tahay okay man sorry taas is okay no problem luul nin kale kama hadli kartid okay tiger ha soo baxo marka ana tiger ku wareejiyo wixii inta ka labaad qodob ayaan maxkamaddu go'aaminay waxaynu dib u kulmi doonaa sabdigiisa oo maxkamaddu ay go'aan cad halkan keenaysa oo ah waxay soo dhaadhinaysaa maxkamaddu in la kala tago ama la wada joogo labadaas mid ka mid ah ayay maxkamaddu shacabka hor keenaysaa waxaan rabaa aniga yaasiina gooni wada hadalno aniga iyo luulna gooni aan wada hadalno aana wax badan oo laga dhihi karin meesha publiga ah aan telefoon iska dhacno hayes ka soo bax tiger boy okay warna aad u maasantiin dhamaantiin inta meesha wada saaran iyo shacabka hoos joogay oo boolka marka la tuurayay luul aad ugu codeeyay marka waxaan leeyahay bal insha Allah wixii markaas go'aan ah anaga maxkamadda hor dhignay ama sabtida dambe ha noqoto ama hadda dambe ha noqoto wixii markaas go'aan ah ka soo gaarto labadooda intaas aan ku wada dhaqaaqeynaa insha Allah hadalkii waa inta waayahay madaxweyne Suleymaan sida caadiga ah hadalka wanaagiisa meel fiican baa dhigtay adaan jawaabka suganaa insha Allah taala waxaan jeclaan lahay intaadan sabtida ama appointment kale aanan la tagin inaad macnaha na soo wacdo maadaama anaga wakiil aan ka nahay labadaas qof aniga Tiger Boy insha Allah taala wanaagna ay ku dhamaato waayahay waxaan rabaa intaysan hadlin luul iyo yaasiin bool baa idin soo dhigaya qosolka go'aanka ay maxkamaddu gaartay waa ku saxan tahay oo sax bay ku tahay maxkamaddu ooyinta kuma saxna si shacabka aysan noogu arag dadka kaligiitanaysa qosolka maxkamaddu way saxan tahay go'aankaas waa qaadanay ooyinta kuma sax